بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وصلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka iyo shacbiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaybihiisa kala duwan oo beeraley, xoololey, xataa qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka dhisantahay ka samaysan tahay. waan salaamayaa. salaanka bacdi waxaan rabaa horaan inaan idinka shacbiga aan u cudur daarto. anigu ma ahayn qof oo miidiyada ku dhex badan oo ama ka hadalkeeda ama qalabkaan ayaamahan baraha bulshadeed iyo wax ka galgala ma aanan ahayn. hase yeeshee waxaa iqasbay duruufaha ayaaman haddii mar walba aad aragtaan wax kale ma aha ujeedada. waajibaadkaygan ka hoos marayaa haddii aanan idinla socodsiin dhabta jirta ayaamahan duruufaha gaarka ah golihiina shacbiga matalayay duruufaha uu ku jiro awgeed inaan mar walba wixii dhab ah jira aan idin soo gaarsiiyo waa waajib isaaran maadaama ay ammaano nagu tahay hogaaminta golihiina oo codkiina aan ku hadlayno. saa daraaddeed baan soo noqoshada badatay marka wax ka cudur daarana haddii aan idinku badbatay. waana ujeedada oo dhanna waxay tahay in aan dhabta jirta aan idin sheego. waxaan idin xusuusinayaa in warqad xafiiska guddoonka ka soo baxday bishii 30keedii qodobka waxaan dhammaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida aan ku wargelinay una sheegnay xusuusinay aan iraahdo qodobka 127 ee dastuurka oo faraya in ciidamada qalabka sida ay ahaadaan dhexdhexaad aysan marna ku milmin garab siyaasadeed ama dhinac kale ayna u janjeersanin ayaa dhab ahayd oo yani dhab jirta way aan u sheegnay oo mar walba inay u adeegaan dalka guud ee dalka ayagoo ilaalinaya dastuurka iyo shuruucda. yani xilkaas waa xil dastuuri ah oo ay mar walbana ku shaqeeyaan marka ay ku adeegayaan ama ay ka howlgalayaan golaha shacabkana inay u hoggaansamaan dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacbiga uu ku dhaqmo. saa daraaddeed ayaa magaciisii xusuusintaasi maalintaa dhaweyd aan samaynay. waxaa jirtay in xalay aan la shiray taliyayaasha ciidamada qalabka sida taliyaha booliska, taliyaha asluubta iyo taliya xigeenka nabad sugidda iyo abaanduulaha xoogga dalka oo aan haddana mar labaad sii xusuusiyey in arrimaha ay ku socdeen inay maanta ka howlgalaan inaan dhabta ka jirta aan u sheegay ayaan si fiican ugu sii fasiray una xusuusiyey in ay dhexdhexaad ka aadaan garab siyaasadeed ayna gelin kadeed kastoo u yimaada qofkii ayaga amar ay ka qaadanayaan ay u sheegaan wixii sharciga ah waxay fulin karaan waxayna fulin karin. hase yeeshee meeshii ka baxeen dibna iguma soo noqon hawshooda halkiisay ka wateen. saaka markaan meesha oo aan tegey aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka wada soconay iyo kaaliyaashayda oo xogayntayda ayaa ila socdeen iyo dhowr qofood oo ilaalada haddii la ku roon yahay ilaalada guddoonka ah 12 qofood oo dharcad ah. waxaana lagu joojiyey raadi muqdisho. waxaa la yidhi halkan ma dhaafaysid dadka meesha lagu joojiyey. waan weydiinay war golahayga shacbigaan u socdaa yaa amarka idin siiyey inaad sidaan u galin iyo wax la galay. wasiirka amnigaana siiyey oo saxiixana ka aamushay. marka arrimaha waxaa weeye golihii shacbiga oo annaka aan gelitaankiisa rabnay baa haddana sida loo galaayo amar bixintii aan xusuusiyey. qofkana dhahayna waa nin generaal ah. marka arrimahaasna nasiib darro weeyaan in lagu kaco. waxaa kaloo intaa dheer in kumaanku ciidan ah lagu soo daadsiyo magaalada iyo golaha shacabka oo shacbiga dhan u jeeday dadka dhan u jeeday. waxaa nasiib darro ah haddan in la yidhaahdo golihii shacbiga gudoomiyihii golaha shacabka ayaa wuxuu qabsaday golihii shacabka oo haddii allah wanabi calaykum 12 qofood oo askari baan ku qabsan karaa golaha shacabka. marka arrintaasi waxaa weeye say u muuqato waxyaabo kale loola danleeyahay dhabtaas inaad ogaataan waa lagama maarmaan. waxaa kaloo dhacday in qodobka 38 ee xeer hoosaadka wuxuu si qeexan u sheegayaa in qof askari ah aan soo geli karin ciidan ah aan soo geli karin golaha gudihiisa iyadoo amar aan laga haysanin xaq dhowraha oo u xilsaaran asoo ku shaqaynaya amarka gudoomiyaha
abdooraha u xisaaran qofka soo galay marka loo baahan yahay inuu soo gal yiraahdo hase yeeshee markaan meesha galay waxaan ugu tagay meesha oo magaciisa kontomey lixdamey wax ka badan oo ciidan ah oo golaha gudaha meesha xildhibaanada ku jiro oo haddana xindaabyo samaysanayo oo meesha ku howlay arrintaas waa arrin aan loo qaadan karin aniguna xataa ciidanka guddoonka aniga ila socda xataa oo dharcadka ah iyo dhowr qofooda oo amisom ah waxay fariistaan kuma soo dhawaadaan meesha kulanka oo fadhiga oo xildhibaanada waxay fariistaan xafiiskayga gadaan ay nagu sugaan marka arrin oo aan la yaabay noqotay markii dambe aan iri meesha laga saaro waxaa intaa dheer in haddana 100 xildhibaan in ka badan in loo diiday albaabka inay soo dhaafaan dibadda meesha baabuurta lagu hayay ayay sii joogeen marka waa jawaari baa wax qabsaday golihii shacabka oo qabsaday guddoomiyihii golaha shacabka wuxuu qabsaday golihii shacabka waxay la mid tahay madaxweynaha madaxtooyada qabsaday oo kale marka waxaan wax lagu qoslo waayo wax lagu hadlo ma aha waxaan aad iyo aad uga xumahay wararka noocaas oo kale oo la bixiyo iyo kunkaas oo ciidan oo loo soo bixiyay dhowr xildhibaan oo shiraysa loo soo bixiyo oo haddana dabaabaadkoodii waxooda dhan wataan in la yidhaahdo golaha shacabka ayaa guddoomiye qabsaday ama markii dadkaasi oo loo baahdo markii cadowbaa lala diriraa la yidhahdo kunkaasi meesha aan ku arkayn xalay ilaa maanta aan la helin waa nasiib daro taa iyadana ah marka sidaa daraaddeed waxaan shacbiga ku wargelinayaa ma jiraan wax oo marka ma jiro wax oo waxyaabaha ay maqleen iyo wax lala diriray iyo qof oo ciidan oo gacan qaaday wax ma dhicin alxamdulilah waxyaabaha hadda meelaha lagu soo qoray iyo sharootooyin la soo dhijiyay meeshii ay ka dhacday anaka meel waxaan ka naqaano maaha intaasoo dhan waa masabid waxaa loola jeedana waa waxyaalo kale waa nasiib daro aniga oo cudur daaraya dhammaan taliyayaasha oo arrintaas ka hadlay waayo culays xoog leh baa saaran marka ha loo naxariiso wax kastoo ay maalmahan ku dhacaan insha allah waa walaalo fiican waan aqaanaa aqoon fiican bay leeyihiin waan ogahay sharciga inay yaqaanaan laakiin duruufo iyo culaysyo badan oo kadeed ku haya ayaa jira marka shacbigana waxaa anaa uga cudur daaraya saaxiibadeyda waa niman fiican oo shaqadooda yaqaano ciidankeena waa ciidan fiican يعني ciidankii maanta socday askarta wax dhibaato ah ma jiro laakiin amarada la siinayo ayaa qalab ah marka waa intaas aan kusoo gabagabeeyo maanta inta dhacday intaa ahayd marka golaha markii dib loo furi doono ayadoo waxaan ku dadaali doonaa in ayadoo labada garab ee xildhibaanada aan isu keennay iyagoo raalli ah wax kastoo ay ku heshiiyaan baarlamaanka ayaan u furo ayaan ka shaqaynayaa ayaamaha soo socda haddii aan la yidhahdo idinkana waxaa idinka codsanayaa inaad ducada noo badisaan ilaahay nooga barya cafriga iyo ummaddan soomaaliyeed si rabbi raalli ka yahay oo annagana noo roon ilaahay inuu noo sahlo ducadaasi yaan la joojinin hal la wado yacni waxaa jiritaanka golaha shacabka ayaan aad ugu walwalsanahay waxaan rabnaa shaqooyinkii iyo hawlihii iyo xooggii aan soo gelinay oo heerkan aan ku soo gaarsinay inaan sii wadno haddii alla idin